السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال iyo marwooyin dhammaan mas'uuliyiinta kala gedisan ee nagala soo qayb gashay munaasabadan aadka quruxda badan waa wiigii toddobaad ololaha ku shubo oo guuleyso oo aan ku qabanayno beerta nabadda ee magaalada Muqdisho. waa maalinimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 3 bisha 9 sanadu waa 2021 iyadoo aan jecelnahay inaan sii aanbaqaadno ololaha ku shubo oo guuleyso in la abaalmariyo macaamiishii ku guuleysatay sida caadadaba inoo ahayd toddobaad walba waxaynu ku qaban jirnay munaasabadan isla halkan oo ah beerta nabadda ee magaalada Muqdisho iyadoo fagaarahan ay nagala soo qayb galaan macaamiisha guuleystay iyo mas'uuliyiin kala gedisan oo kamid ah qaybaha kala gedisan iyo bulshada oo aan si gaar ah u bogaadinayno. sidoo kale waxaan halka ka marnayn mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda isgaarsiinta Somtel iyo howlwadeenada guud ee shirkadda. barnaamijkan waxaa si toos had iyo jeer u cover gareeya warbaahinta Soomaaliyeed oo aan aad u bogaadinayno iyadoo tabinta tooska iminkaba ay noo sameynayaan Astaan TV, Muqdisho Cable TV, Radio Kulmiye, Shabeelle TV, 5 TV, RTN TV, Goobjoog TV. mustaqbal radio ayaanan ka tagin. waan u mahad celinaynaa dhammaan muuqaal duubayaasha iyo bahda warfidiyeenka qaybahooda kala gedisan ee munaasabadeenan soo sharfay. insha Allah waxaan jecelnahay inaan si toos u guda galno iyadoo qaybaha kala gedisan ee munaasabada aan ku soo qaadan doono hadal jeedino rasmi ah iyo sidoo kale inaan generate gareyno macaamiisha la abaalmarinayo insha Allah ta'ala toddobaadka soo socda iyo kuwa maanta nala guuleysanaya. intaba ugu horeyntii waxaan jecelahay barnaamijkeenan inaan ooda uga qaadno aayadaha Quraanka Kariimka aan ku daafurano. waxaan u yeerayaa walaalkeen Baashi Cabdilqaadir Jirde si uu aayadaha Quraanka Kariimka halkan inooga aqriyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آدي يومها سنيهاي كاسين وحوها باشي عبد القادر جردة وأنا بقادينينو إلهي نجيله كوي كعمل فلا معاني ذا حنبار سنيهين أيضا قرآن كريم كو هل كان ينوغا أقريي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مناسبة ويجن تضباط إنه كوجو جرنا وحاكه رئيسي إلى لح تضباط وعن هراء وساق بناي يضو لأبا المريي معامل كلا جديسان. 28 bishan ayaa ugu dambeysay maalinimadii Sabtida aynu ka soo gudubnay waxaanu abaalmarintii ugu weyneyd ay shirkadda ay bixiso kana mid ah ololaha ku shubo oo guuleyso 10,000 oo hadiyadood iyadoo ay ku guuleysatay gaarigii bishii koowaad ee ololahan ku shubo oo guuleyso Marwo Madiino Xuseen Yaxye oo ku dhaqan miiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo aan aad u bogaadinayno iyadoo halkan inoogu timid munaasabadana waxaan ku qabanay Hotel Dikale ee magaalada Muqdisho iyadoo si toos ah loogu wareejiyay gaariga qiimihiisu uu ahaa ku dhawaad $40,000 oo ay Somtel bixisay bishii koowaad ee ololaha ku shubo oo guuleyso. waxay nagu soo fooleh oo maanta baan guda galnay 2 bilood ee xigta iyadoo ololahan 3 bilood ugu horeyso inoo socon doono. sidoo kale 3 bilood oo xigtana waxaa lagu guuleysan doonaa sidaan hore u balan qaadnay apartment kamid ah dawaqa caalamiga ee Dahab Tower oo dhawaan laga hirgelinayo magaalada Muqdisho. waxaan rajeynayaa macaamiisheena sida ay ugu tartameen hadiyadaha kala gedisan oo ugu horeeyo gaariga bajaajada qaybahooda kala gedisan frinjeerada qasaalada laptopyada sidoo kale iPadyada kama marna mobilada Samsungada lacagaha mobile moneyga oo telefoonadooda lagu kala dirayay. waxaan rajeynaynaa insha Allah 3 bilood kadibna inay u baratamaan oo ay ka mid noqdaan macaamiisha lagu abaalmarinayo mid kamid ah apartmentyada ugu casrisan magaalada Muqdisho dabaqa Dahab Tower oo dhawaan laga yeegleelayo magaalada kana kooban 25 dabaq. waxaan jecelnahay kelimada xarig jarka iyo daafurka munaasabada inaan guda galno. waxaan u yeerayaa mid kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Somtel isaga ayaa xariga inooga jaraya walaalkeen Maxamed Ibrahim Beyle.
maamula waxaan leeyahay soo dhawow si aad munaasabada toos xariga inooga jirto ku soo dhawow stage-ka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا halkan ka salaamayaa madaxda shirkadda isgaarsiinta Somtel, madaxda shirkadda Dahabshiil Group, bulshada qeybaheeda kala duwan, bahda saxaafadda. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta isbuucii toddobaad aan guda galno barnaamijka ku shubo oo guuleyso. Sida aan ka wada dhargsanahay barnaamijka ku shubo oo guuleyso waa barnaamij noociisa midkii ugu horeeyay ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee shirkad ka fuliso. waxaana noqotay shirkadda Somtel. bulshada mar walba waxay diyaar u tahay inay ku soo celiso agabyo waxtar leh si ay mar walba ula jaan qaado. sidaan ogsoonahay isbuucii hadda la soo dhaafay waxay shirkaddu abaalmarisay gaarigii ugu horeeyay oo Hyundai taasoo ay calaf u yeelatay maamo Madiina oo ku sugneed gobolka Hiiraan iskana ahayd maamo danyara. sidoo kale to 6 isbuuc oo socda barnaamijka waxaa la bixiyay ku dhawaad ilaa 15 bajaaj kaasoo inta badan bulshada dadka u baahan ay ku guuleysteen. waxaan rabaa inaan ugu bushaareeyo bulshada Soomaaliyeed in adeeg barnaamijkan ku shubo oo guuleyso wali waqti badan uu ka haray oo muddo bil iyo bar ay ka harsan tahay ilaa 15 bajaaj 2 gaari oo Hyundai in la bixiyo inay dhiman tahay. sidaa darteed waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo bulshada Soomaaliyeed inay soo gaaraan xafiisyada ilaamaha shirkadda si ay nasiibkaas qayb kaga noqdaan. waxaana halkaas heegan ugu ah oo ugu diyaarsan shaqaale loo carbiyay soo dhaweynta iyo adeegida bulshada ee macaamiisha Soomaaliyeed. si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda iyo farsamayaqaanada sida hagar la'aanta ah ay bulshada ugu tabinayaan barnaamijka ku shubo oo guuleyso. macaamiisha aan weli qaadan adeegyada shirkadda Somtel waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waan idin soo dhaweynaynaa waqtiguna weli ma idinka idlaanin. waxaan rabaa inaan fursad siiyo dadka inta iga dambayso. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ariyaad sano kala arki أنا أركي كيتسو oo maxaan kaydsadaa هانتي هذا كيتسو taas ma dhaceyso سبب markan waayahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mudane maxamed ibraahim beyle oo si toosa xariga inooga jaray munaasabada. sidoo kale wuxuu inooga sheekeeyay sooyaalka uu soo maray ku shubo oo guuleyso. waa hambalyeynayna macaamiisheena waxaan leenahay 10,000 oo hadiyadood ay Somtel idinkugu tala gashay. waa shirkadii ugu horeysay ee ganacsi ee ka jirta Soomaaliya ee macaamiisheeda dib ugu celisa 10,000 oo hadiyadood wixii yaraay koobnaa ama dakhligii yaraa dib ugu sii celisa macaamiisheeda iyadoo markaa ka jawaabaysa rabitaanka dadweynaha iyo inay bulshada u shaqeyso aanay ka shaqeysan oo kaliya. si gaar ah u bogaadinaynaa maamulka sare ee shirkadda iyo howlwadeennada oo garowsaday in macaamiisha mar walba mudnaanta koowaad la siiyo wixii yaraa ay ka soo laabtayna dib loogu celiyo. barnaamijkan inta maalmood aanu soo qabanaynay marka laga tago maanta maalin walba waxaan ku abaalmarin jirnay macaamiil kala gedisan. xaqiiqdii markaad guda gasho aad dareenkooda taabato macaamiisha guuleysatay waa kuwo aad ugu baahi qabay. tusaale maamada ku guuleysatay gaariga waa maamo beeraley ah oo danyara oo aad ugu baahi qabtay. xaqiiqdii markaan weydiinay bal ka waran dareenkaaga waxay noogu jawaabtay maan filanayn farxad darteed inaan suuxo ayaan halis u ahaa marka la ii sheegay waad guuleysatay. dadka ku guuleystay bajaajyada sidoo kale waxay u noqotay shaqo abuur oo ay Somtel xaqiiqdii ka shaqeysay mar walba in bulshada si hufan oo daafran loogu adeego. waxaan rajaynayaa inaan ka wada faa'iideysan doono. iminkana waxaan jecel lahay inaan guda galno generate garaynta macaamiisha guuleysanaysa iyagoo u tartami kara 10,000 oo hadiyadood. hadiyadii aan hore u carab dhownayn waxaa qayb ka ah gaariga Hyundai-ga, bajaajka, laptopka, Samsung mobileska, fridge-ka, qasaaladaha qaybahooda kala gedisan, dahabka ay dumarku xirtaan, iPad-yo, tablets, lacagaha mobile money-ga oo macaamiisha si toos ah telefoonkooda loogu dirayo. waa u wada tartami kartaan. sidoo kale waxaa qayb ka ah deeq jaamacadeed ama deeq waxbarasho. waxaan jecelahay iminkana inaan ku soo dhaweeyo si uu markaa generate garaynta inoogu sameeyo madaxa suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta Somtel mudane Axmed Ciise Xaaji. boos soo dhawow. ariyaad sano kala arki أنا أركي كيتسو oo maxaan kaydsadaa هانتي هذا كيتسو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بلشدة الصوماليات martida nagula sugan goobtan beerta nabadda iyo kuwa online ka nagala socda waan u mahadcelinaynaa sidoo mas'uulkii igu horeeyay sheegaba barnaamijkan waa weekii toddobaad inta dhiman ayaana badan sida kaliya looga qayb gali karo waxay tahay shuruudo gooniya ma jiraan waa ku shubo oo guuleyso haddaa ku shubtid kaarka hadalka ama internet uga isticmaal ama ku hadal uga isticmaal waxaad ku guuleysan kartaa oo fursad waxa u heli kartaa inaad guuleysatid week walbaba dad badan ayaa guuleystay marka dadka dhan uu furan yahay degmo iyo tuulo iyo xaafadba meel walba aad joogtid bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya uu ku furan yihiin waxa alxamdulillah inaan bajaajo badan baabuurkii hooyandayga ahaa oo la dhiibay isbuucii hore la dhiibay maamadii ku guuleysatay hadaladii ugu weynaa in dhahdo waxa kamid ahayd kulliba live kala socoteen waxay dhahday markii la soo sheegay beer ayaan falayay xitaa yaambadii waa xajin waay markaan la sheegay baabuur ayaa ku guuleystay markii la marka arrimahaas oo kale waa arrimo cajiib ah oo ku faraxsanahay macaamilkeeni meelo kala fog joogo inay ku guuleystaan barnaamijkan sidaan ugu ballan qaadnay mar walba wuxuu u soconayaa si xaq ah xalaal ah daah furan oo aad u wada jeedaan insha Allah hadda waxaan gelaynaa barnaamijkii wareejinta nasiibka dadkii ku shubtay macaamiishii ku shubtay jimcadii hore ilaa xalay saqdi dhexe waxaan iskugu keenay systemkaas dadkii lacag ku shubtay dhan ayaa ku jiro liiska qofka koowaad ugu jiro iyo qofka liiska meesha ugu dambeeya ugu jiro waxay leeyihiin equal chance waa system ugu talagalay inuu isku labo isku dhex qaso kadibna uu lambar kala soo baxo marka inta ugu horeysa ayaa la abaalmarinayaa maaha inta dhexe ayaa la abaalmarinayaa maaha midka ugu hooseeya la abaalmarinayaa maaha laakiin waa qof walba wuxuu leeyahay chance oo macnaha siman equal chance waxa loo yaqaan insha Allah hadda macaamilka ugu horeeyo aan wareejin doono wuxuu ku guuleysan doonaa bajaaj bal aan u jiheysano dhalaada miidiyaha waxaan codsanayaa inay dhalada u jiheeyaan kolley waa bilaabi doonaa starti aan bilaabeynaa wuu socdaa qofkii lambarkaas markii la joojiyo qofkii markii la istaajiyo qofkaas wuxuu noqon doonaa qof ku guuleysto bajaaj ayuu ku guuleysan doonaa ilaa haddan magaalada bajaajo badan oo Somtel winner ay ku qoran tahay ayaa magaalada ka buuxo waa aragnaa maasha Allah waa ku faraxsanahay inay bajaajyadii Somtel ay dhiibtay inay shaqo abuur noqoto oo ayadoo dadka ay ku shaqeynayso qofkii biilkiisa u ka raadsanayo Somtelna loogadeeda ay ku qoran tahay guuleysta barnaamijka ku shubo oo guuleysta ay ku qoran tahay aad baan u faraxsanahay shirkadda isgaarsiinta Somtel maamulkeeda madaxdeeda shaqaalaheeda kullu way ku faraxsan yihiin barnaamijkan waana barnaamij insha Allah bulshada wax u tari doono waa istaajin doonaa maadaama waqti nagu socdo qofkaas wuxuu noqon doonaa qofka ku guuleysto bajaaj hadaa istaajino tiimkii wixii lahaana way noo imaan doonaa insha Allah waa istaajinaynaa bismillah waayahay lambarka ku guuleystay bajaajka isbuucii toddobaad ee barnaamijka ku shubo oo guuleysto waa furaha 481 1441 waa 85 1441 lambarka shaashadan iga muuqdo waa la wici doonaa waa dhacaya iyo degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir hadiyadaha toddobaadkan macaamiisha ay ku kala guuleysteen waxay السلام عليكم السلام عليكم walaal waa shirkadda isgaarsiinta Somtel waxaa si live ah ugu jirta barnaamijka ku shubo oo guuleyso waxaad noo sheegtaa walaal magacaaga saddexan iyo goobta ku sugan tahay walaal waxaan ku sugnaay taleex halkan maaragtay arwada waan deganahay degmada hodan xaafadda taleex ayaa degan tahay
la magacaago saddexan noo sheeg walaal saare aadan ducaale walaal waxaa ku guuleystay barnaamij kushuba guuleyso bajaaj ayaa ku guuleystay fadlan meesha xarunta ugu horeysa oo shirkadda Somtel imo waana ku faraxsannahay inaa macaamiisheeni isbuuc hore lacag ku shubtay aad tahay maxaa dareenkaaga maxaa u aragtaa barnaamijkaas maasha allah wallahi aad baan ugu faraxsanahay oo ku faraxsanta anagana oo sidoo kale ugu faraxsannahay waa maasantahay assalaamu calaykum waraxmatullah shirkadda imo insha allah beri waa imaan kartaa subaxdii hore xafiiska Somtel ugu horeeyo weliba midka bakaaraha imo insha allah maasha allah ayoolaa waayahay qofkaasi wuxuu noqday qof degmada hodan ee gobolka banaadir u joogo bajaaj kuna ku guuleystay waxaa si ilaa haddan bajaajyada hal bajaaj ayaa wadan gobolka banaadir ka baxay gobolada waa jeclaan lahayn in ay kana ku guuleystaan sidoo kale haddan waxaa noogu xigi doono dahab 10 gram ah waana bilaabi doonaa insha allah waayahay qofka haddii la istaajiyo qofka ku istaago ayuu noqon doonaa guuleystaha waayahay dadka live ku jiro qofka oo degmadiisa lagu guuleysto ama lambar u yaqaan lagu guuleysto meesha ha noola wadaago insha allah page-ka Somtel isagana waa toos ah la socon kartaan iyo idaacadaha noola joogaba kulligood waayahay waa istaajinaynaa toban gram oo dahab ah macaamiilka ku guuleystay waa furaha 8 51 67 96 macaamiilkaas meesha uu joogo waa wacana insha allah waxay abaalmarisay ku dhawaad kun macaamiil oo kala jooga guud ahaan gobolada dalka macaamiisha la abaalmariyay ayaa waxay ku sugan yihiin magaalooyinka soo socda Doobley Kismaayo Barawe Qansax Dheere Jowhar Tuulaburde Dhuusareeb iyo degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir hadiyadaha toddobaadkan macaamiisha ay ku kala guuleysteen waxay kala yihiin bajaajo laabtoobyo qasalado firinjeer السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا waxaa kula soo hadlayo shirkadda isgaarsiinta Somtel barnaamijka ku shuba ku guuleyso si live ayaana caalamka lagala socdaa waxaana noqotay dadka nasiibkooda isbuucan guuleystay magacaago saddexan iyo goobta aad ku sugantahay la wadaag waxaan ku sugnahay xaafadda dhinaceeda kalkaal mataqaana albir ku dhow degmada noo sheeg walaal degmada noo sheeg yaa walaal degmada noo sheeg ya degmada aad joogtid noo sheeg degmada biri albirri miyaa joogtaa kolley waa dowladka muqdisho waaye albirri waa yahay magacaaga saddexan magacayga saddexaad waa ibraahim cusmaan cali waa ibraahim cusmaan cali oo joogo dowladka magaalada muqdisho xaafadda albirri waxaa ku guuleysatay 10 gram oo dahaba barnaamijka ku shuba oo guuleyso haa dareenkaaga ka waran maasha allah dareenkayga aad iyo aad baan u faraxsanahay farxaddayda lama soo koobi karo maasha allah aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa adigana waa maasan tahay waa jazaaka allah khayr asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waayahay waa la socotaan barnaamijka dadkii waxaa waaye isbuucyada hadda ugu dambeeyey dadka way wada foojigan yihiin nin walba oo lacag ku shubto lambarkiisa ayuu ilaalsanayaa waa ag fadhiyaa waa ku faraxsannahay inay barnaamijka saas live oo la wada socdaan waxaa qofka saddexaad ayaa jaadgelin doonaa wuxuuna ku guuleysan doonaa qofkan saddexaad mobile Samsung ah fadlan dhalada ha lala socdo farsamada tiimka ya waa garta مسويت كرنا مع عالمتي لا فتي
waayahay waayahay qofka saddexaad oo barnaamijka ku shuba guuleyso isbuucii toddobaad ayaan generate garan doonaa. qofkaana wuxuu ku guuleysan doonaa mobile Samsung ah. aan taabto wuu socdaa. qofkii lagu istaajiyey wuxuu ku guuleysan doonaa mobile Samsung noocyadiisa ugu dambeeyey. waana ku faraxsannahay dadka macaamiisha Somtel inay foojigan yihiin. dadka aan Somtel macaamil lahaynna waxaan rajaynaynaa inay sida ugu dhaqsiyaa badan simkaarka u qaadan doonaan una tartami doonaan barnaamijkan. weli wuu socdaa barnaamijka. waxaana ugu baaqaynaa dhammaan macaamiisha inay kasoo qayb galaan barnaamijkan. waxaa ugu shuban karaan e-dahabkooda noocyada kala duwan, e-dahab resellerka iyo kaarka la xoqaayo. waayo aan istaajino. waayahay lambarka saddexaad ee barnaamijka ku shuba guuleyso isbuucii toddobaad guuleystay waa 8451525. waa wici doonaa asagana meesha uu joogo. toddobaadkan shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay abaalmarisay ku dhawaad 1000 macaamiil oo kala jooga guud ahaan gobolada dalka. macaamiisha la abaalmariyay ayaa waxay ku sugan yihiin magaalooyinka soo socda: Doobley, Kismaayo, Barawe, Qansax Dheere, Jowhar. assalaamu calaykum waraxmatullah. walaal waa shirkadda isgaarsiinta Somtel. barnaamijka ku shuba oo guuleyso waxaa ka mid noqotay macaamiisha guuleysatay. walaal magacaaga saddexan iyo goobta aad joogtid nala wadaag. anaga haa Yusuf Edan Ferey yuusuf ferey haye intee joogtaa? buuraa u galgale ya buuraa u galgale buulay ah ya intee joogtaa? degmada ii sheeg. degmada berdaal degmada bardaale aad joogtaa. bardaale aad joogtaa. meel u dhow bardaale aad joogtaa. walaal waxaa ku guuleystay mobile Samsung aa ku guuleystay. barnaamijka ku shubo oo guuleyso. bardaale iyo tuulada hoos tuulo hoos imaata aad joogtaa. kolleyba waa ku faraxsannahay barnaamijkaas. marka xafiiskeena bardaale waa tegi kartaa insha allah. waxaa joogo duke madkuus ama ismaaciil mobile Samsung oo smartphone ku guuleystay. waana ku hambalyeynayna. duke madkuus oo tegaysaa insha allah. duke madkuus garaase walkase maasha allah. yaya waa tegi kartaa. beriya dareeraase insha allah. haye asalaamu calaykum. waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay mudane axmed ciise xaaji madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha Somtel Soomaaliya. hambalyaan leenahay. malaha afmaygana aad ayuu u garanayay. marka waa mahadsantaha leenahay maasha allah. maamulaheena jooga bardaale ayuu toos ugu tegi doonaa macaamiilka. waad aragtaan reer gobolka banaadir iyo gobolada waa la baratamayaa maasha allah. haddii reer gobolka banaadir ay qaateen bajaajtii waxa waaye dadka muqdisho ka baxsanna waxay ku guuleysteen dahabkii iyo mobileka aad aragtaan. gaarigan iyagaa marka hore qaatay. hambalyaan leenahay insha allah. waxaan jecelnahay iminkana inaan u talaabno hadal jeedinada rasmiga ee mas-uuliyiinta munaasabadeenaan soo sharfay oo aan aad u bogaadinayno. waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo mudane axmed macalin maxamuud oo ka mid ah agaasimayaasha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. mudane waxaan leenahay soo dhawow. bal dareenkaaga ku aadan munaasabadan. sidoo kale waxaan rajaynayaa inaad noo generate garayso hal macaamiil laba macaamiil wixii suuragal ah. بسم الله الرحمن الرحيم. ugu horeyn waa u mahadcelinayaa shirkadda Somtel iyo macaamiisheeda kala joogta geyga Soomaaliya guud ahaan. xaqiiqdii waxaan halkan cabaaran fadhiyay. waxaan fiirinahay balqaabka ay u socoto shaqadu. run ahaantiiba wax la bogaadin karo oo daahfurnaan ah.
waa dhiirigelin. waxaa laga yaabaa qof $1 ku shubtay inuu ku guuleysto $40,000. xaqiiq ahaantii waa barnaamij aada u cajiiba, waana ku bogaadinayaa Somtel. waxaan rajaynaynaa shirkadaha kalena inay sidaas si lamid ah bulshada waxa ay ka qaadaan ay dib ugu celiyaan. anigu waxaan ka mid ahaa macaamiisha Somtel 10 sano ugu dambeysay. Somtel iyo shirkadii hore oo ka horeysaba waxaan ka isticmaali jiray taleefano. waxaana markii barnaamijka la bilaabay aan rajaynayo islaha aan si fiican u fiirinayo bi magacaaga la markaaga soo bixi doonaan. waan rajaynayaa inaan macaamiisha guuleysta ka mid noqon doono. intaas kadib maadaama waqtigu aada ciriiri u yahay waxaan rabaa inaan starti dhaho. waxaan jeclaan lahaa inaan hal mar technical groupka ay maadaama aan ku cusbahay. okay aad iyo aad kolle shaashada laga arkayaa qofkan wuxuu ku guuleysan doonaa systemkaa dooran doono, qofna ma dooranayo, wuxuuna ku guuleysan doonaa $50. oo ii dahab ah. waxaan rajaynaynaa $50 intuu ku shubto inuu haddana mar labaad $40,000 ku guuleysan doono. waa istaajinayaa. lamarka guuleystay shaashadana ka muuqda. furuhu waa 8 70 30 88. waxaan rajaynayaa macmiilkaas macmiil nasiib leh. waxaan u rajaynayaa caafimaad qab iyo inuu taleefanka qaban doono marka la waco. waxaa wici doona tiimka, waa ayagaana la hadli doonaan rajaynaya. macmiilkaas waa u hurdaa. waxaan rajaynaynaa calafkiisuna ma dhaafi doono. hadduu jiifo waxaan ku xijin doonaa midka ku xiga. qofkan wuxuu ku guuleysan doonaa qasaaladaha. waxaan rajaynayaa inuu dharka gacanta ka nasan doono. waa bilaabeynaa. qofkii xigay qofkii lixaad aan u malaynayaa. lamarga ku guuleystay mashiinkii oo dharka dhaqaayay wuxuu noqday 5-8-8-41-59. waxaan u rajaynaynaa nasiib wacan. shirkadii ku caawisay ama ugu talagashay macaamiisheeda inay dhiirigelisana waxaan leeyahay adinkuna aada u mahadsantihiin. bulshada Soomaaliyeedna waa in ay ku talagashaa meel aan tartan ka jirin. nololi kama jirto. shirkado monopoly nagu haysan jira way jiraan. marka in shirkaduhu noo soo bataan oo saana kale lagu tartamo oo $1 $40,000 lagugu bedelo yaan rajaynaynaa. aadana u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay mudane Axmed Macalin Maxamuud oo ka socday hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha. waan bogaadinaynaa munaasabadeena na soo sharfay. bal iminka waxaan jecelnahay inaan jalacno qaybihii dumarka. adduun waa haween, intaa leysuma hayee nin doonaaba ha hadle, hooyadu waa lama huraan. waxaan u yeerayaa walaasheen Hani Cabdikariin oo ka socota ururada haweenka. waxaan leenahay Haniyey, bal soo dhow walaalo si aad hadal jeedintaada rasmiga halkan uga samayso. waxaan u mahadcelinayaa shirkadda iyo dhammaan macaamiisha ka qayb gashay. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamadii oo baabuur ku guuleysatay. Madiine Xuseen
faraxsanahay inay ka qayb galeen gabdhaha waxaan rajaynayaa sanadka dambe inay noqon doonaan gabdho insha allah maamadaasna waa u mahadcelinaynaa insha allah insha allah haddana waxaa lagu guuleysanayaa laabto waa arkaynaa nasiibka insha allah sarjeena waayahay hani aad iyo aad ay u mahadsantahay naga tegin aan leenahay macaamilka guulaystay waa fura 6 21 53 21 marka hambali aan leenahay hal macaamil aan raacinayna insha Allah taala frinjeer ayuu ku guulaysanayaa inoo star garee macaamilkii horena laptop ayuu ku guulaystay hambali aan leenahay walaasheen hani waxaan filayaa hableey inoo soo xushay sidaan dareemayo waan arkaynaa talo ma gabar baa ma wiil baa macaamilka guulaystay waan wada bogaadinaynaa macaamiisheena iminkana fridge-ka loo baratamay ma sha Allah waa yahay waa maasantiin hambali aan leenahay lambarka guulaystay waa 84 38 72 27 afwan waa 84 38 27 hambali aan leenahay hani aad iyo aad u mahadsantahay waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan munaasabadeena soo xirano inoo fariisay insha Allah waayahay munaasabada waxaa si toos inoogu soo xiri doona madaxa waaxda ganacsiga shirkadda isgaarsiinta Somtel mudane Cabdullaahi Cali Caamir boos waxaan leeyahay soo dhawow si aad inoogu soo afjarto munaasabada isbuucii toddobaad ololaha ku shuba oo guuleyso بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان كسو قيب قلياشا قيبها كلا دوانة برشادة بعد الصحافة مرلبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحاف فرحت إنه أسبوعي تضباط إن أنا هل كان كو قبنو برنامج كي كشفة أو كجوليسو سيدي معمول كي يجور ري هراي ودواجيان Somtel وحين نقاط الشركة دي يجور رئيسي أصاب بندك برنامج نوعان وكلام برشادة الصوماليات برنامج كانوا وبرنامج Somtel أي كفر حد قلنا يسمع عميش هذا كوي هراي يكوى عصب وحموقتا وحيابها أي كل علينا يسمع برشادة إن يهين وحيابه واحتر ولا برشادة وأنا نحين wax maanta kaliya ku filan qoyskaas wax ku guuleystay sidaad arkaysaan bajaaj gaari $40,000 jooga $3,500 markuu ugu yar yahay bajaaj jooga fridge dahab waxaan la yiraahdo qasaalad oo kale waa wax bulshada wax u taraay waxa kamid ah oo kale scholarship oo waxbarashadii runtii wax weyn ka qayb qaadanay Somtel mar walba waxa ay bixinayso oo ay bulshada ku celinayso waa wax waxtar u leh ummadda waana shirkadda ugu horeysay arrinkaas muhiimka bulshada soo bandhigtay macaamiishii ku guuleysatay runtii waa u mahad celinaynaa waana u hambalyeynaa kuwa hadda dhimanna waxaan leenahay barnaamijku fari ka maqodna muddo ayaa dhiman macaamiisha xafiisyadayna gacmaha furan ayaa lagu soo dhaweynayaa adeegii isagoo lacag la'aan la siinayaa waxaa laga yaabaa macmiil usbuucan ku shubtay $1 ama $2 ama $5 inuu hadiyad qaali ku guuleysto waxaan leenahay marka u soo degdega macaamiishaynu ha joogaan gobolada South and Central Soomaaliya magaalooyinka kala duwan waxay xor u yihiin inay u tartamaan adeegan qiimaha badan leh lacagii ay ku shubteen iyaga isticmaalaya tartankan ay galayaan waxaynu ku guuleysan karaan hadiyad qaali ah waxaan leenahay marka gobol khaasa iyo magaalo khaasa laguma talagelin barnaamijkan waxaa loogu talagalay gobolada South and Central Soomaaliya la yiraahdo dhammaan macaamiisha joogto waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan barnaamijkaas qiimaha leh waxaad arkayseen goboladaas aan tilmaanay magaalooyin badan oo kamid ah in dad ku guuleysteen hadiyadahan qaaliga hadda waad arkayseen macaamiishii ku guuleysatay hadiyadahan qaaliga waxay iskugu jireen macaamiil Muqdisho joogta iyo macaamiil gobolada joogta barnaamijkan waxaan arkaynay dad badan oo live ku jira oo dhahaya Muqdisho kaliya loogu talagalay Muqdisho inaan loogu talagelin waxa cadeynayay meeshaan maanta waxaan ku soo dhignay usbuuc kastana ku soo bandhigi jirnay barnaamijkan furan oo serverka shirkadda lagu wareejinayo macaamiishii ku shubatay adeega usbuucaas
ay kasoo baxayaan gobol walba macaamiisha joogta qofkii nasiibkiisa uusan waxaan leenahay usoo degdega aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijkii galabta aan halkan ku qabanana halkaas ayuu noogu xiran yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay madaxa waaxda ganacsiga mudane cabdullaahi cali caamir tan iyo toddobaadka dambe waa daadiyaha barnaamijka cali cusmaan taaha oo idinkaga tegaya nawaadiinu nooli kulantay ammaano allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadgelyo ayaa sama kala arkay Ana arkay kaydso. oo maxaa kaydsadaa Hantidaada kaydso.